bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo caalamka aad ka joogtaan kusoo dhawaada warka Soomaali Cable oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi anigoo Cabdullaahi Axmed Cali aan u diyaarahay qodobada aad ku daawan doontaan kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu magacaabay guddiga gurmadka magaalada Qardho gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa maanta xilkii la wareegay 3,000 oo qoys oo ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa ka barakacay roobab maalmahan ka da'ayay magaaladaasi wadanka Kenya waxaa dib loo furayaa maqaayadaha iyo hoteelka balse wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha laga baarayo cudurka coronavirus ka hor inta aysan shaqada bilaabin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goordhow warka ku daawan doontaan haddii bakaraal noqdo u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadar adiga bulshada madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu magacaabay guddiga gurmadka magaalada Qardho waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu dalaacsiiyay ciidamo ka qayb qaatay gurmadka magaaladaasi sida uu ku warramay wariyaha magaalada Qardho inooga soo warrama Maxamuud Nadiif Shire madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeenkii xalay magacaabay guddi sare ee gurmadka fatahaadaha Qardho oo ka kooban 24 xubnood kuwaas oo iskugu jira wasiiro ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka Karkarkan degmada Qardho culimo iyo ganacsato sidoo kale madaxweynaha ayaa saaka aqalka madaxtooyada Qardho kulan kula qaatay xubnaha guddiga waxaana kala hadlay sidii qiimeyn dhab loogu sameyn lahaa khasaaraha ay geysteen fatahaaduhu iyo sidii gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dadka ku barakacay dhanka kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa saaka kormeer ku tagay xerada tababarka ciidanka xorgoble halkaas oo uga socdo qaar kamid ah ciidanka daraawiishta Puntland oo qayb lixaad leh ka qaatay gurmadkii loo fidiyay dadkii ku barakacay tahaadihii soo foosaaray magaalada Qardho madaxweynaha ayaa ciidanka uga mahadceliyay dadaalkii dheeriga ah ay muujiyeen waxaana sheegay in dhammaan ciidankii ka qayb qaatay gurmadka fatahaada Qardho uu dalaacsiiyay mid hal darajo waxaan marka ugu horeysa dufcadan si gaar uga mahadnaqaya waa dufcad sida hal dalla taliyuhu sheegay dufcad loo bixiyay dufcadda Badar oo muddo dheer runtii dadka nabadiidka iyo dadka cadawga ah hortaagna u diiday inay soo galaan deegaanada iyo magaalooyinka buuraha ku horjoogay in badan ay uga shahiiday ilaahay ha u naxariisto in badan ay duruuf adag ay ku soo sabreen maanta sharaf ayay inay tahay in dadkiina iyo dalkiina inta inay og yahay ummaddu way isku tiirsan tahay qof walba meel buu ku tiirsan yahay islaanta yaanyada gadaysa ee shalay kuwooda Qardho jooga biyaha la tageen ummadan qiime u leedahay maxaa yeelay qayb ka mid ah bulshada oo ay ku tiirsan tahay way qaybtiin waa hooyooyinkiin qaarkiin waa xaasaskiinni haddaydan idinkuna cadawga ka ilaalin ma ay heli karto inay ciyaalkii iyo ubadkii ay kuriso magaalooyinkii ay ku dhaqmaan horumar ay u sameeyaan bulshadooda marka qolo walba qayb bay ku aadan tahay laakiin ummad walba meel degan dadka ugu muhiimsan waa dadka ciidanka ah oo amniga ayaa asal u ah dadka amniga sugaya waa dadka ummadda ugu qiimaha badan oo la rabo in ay ummadan markaas salmig u fariisato waxaan kaloo runtii aad iniga mahadcelinayaa gurmadkii aad ka geysateen daadadkii ku soo dhacay magaalada oo runtii haddii aydan joogi lahayn والله هو بقولال قف وميدان ما أنت أصل هين مركا ومدة إلا الدفاعه ووحول بين لقى دفاعه متك حق جركا أو قرية ستين لقى دفاعه بيها يدات إن لقى دفاعه دبك إن لقى دفاعه جهل إن لقى دفاعه كلا دم بين لأنت إن لقى دفاعه توجد يدتك حن إن لقى دفاعه دقال حماضة إن لقى دفاعه دفاعه مال والبوقلا ما دفاعه ننقر وتا أو الدفاع كليه marka sidii ciidan lagu yaqaanay oo runtii ciidanku marka xaalad kasta jirtay ay u taagnaadaan ayaa maanta ku sifowdeen sharafteeda leedihiin waxaan rabaa maanta inaan halka cadeeyo inta halda ku jirta dugsiga oo tababarka ku jirta inta dugsiga tababarka ku jirta inaan kulligood min hal darajo la dalacsiyo واجبكي هراء أسلو قدتين واجبك هدا قدنيسان وإنا تبرنيسان وديسيبلينكي يهركعوا صعدان إنا دتكي إنه أديسان سعيد مؤمن أحمد ورك الصومالي كيبل تي في مقالة قردو
inaha maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah xubnaha isbedel doonka ee maamulkaasi ayaa maanta waxa ay gareen magaalada Kismaayo sida uu ku soo waramayo wariyaha magaalada Kismaayo inooga soo warama waa bari aadan waa bari madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi caasimadda dowladda Kenya halkaasi uu kulamo gaar ah u la yeeshay qaar ka mid ah isbedel doonka Jubbaland ugu dambeyntii isbedel doonkii mudane Axmed Maxamed Islaam waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku heshiiyay qodobo dhowr ah maanta ay dib ugu soo guriyo noqdeen magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka ah maamulka Jubbaland madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ay kamid yihiin qaar kamid ah isbedel doonka Jubbaland waxa garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo ku soo dhameeyay qaar kamid ah bulshada reer Kismaayo oo isku jira odayaal dhaqameed haween iyo dhalinyaro soo dhaweyn kadib madaxweynaha ayaa waxa loo galbiyay hoolka VIP-da cusub ee dhawaan laga helgeliyay magaalada Kismaayo gaar ahaan garoonka magaalada Kismaayo ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halkaasi oo ay kula hadleen warbaahinta ugu horeyn warbaahinta waxa la hadlay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Islaam wuxuuna yiri sida tan taamarkan ka tago waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo saaxiibaday isbedel doonka ahaa oo aan leeyahay ficlan waxaan soo galay wada hadal dheer waadna ogtihiin Jubbaland dib u heshiisiin iyo nabadeyn iyadaa ku dhisan maalintii ay bilaabatay ilaa maanta waxay ku jirtaa soo dib u heshiisiin isu imaatin nabadeyn iyo dadka in la isku wado saaxiibada xildhibaanka iyo Sheekh Daahir iyo ugaaskii oo naga maqnaayo arrimo yaryar xagga reerka u haray waxaan uga mahadcelinayay inta wakiilada ka ahaayeen sidoo kale warbaahinta waxa la hadlay xildhibaan Xidig iyo Sheekh Daahir kuwaasi oo kamid ah wafdiga uu madaxweynaha hogaaminayo oo maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan heshiiskii dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dowladda Kenya waxaan ugu baaqayaa ama si aan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed ee nagala qayb qaadatay heshiiskaasi inuu dhaco sida madaxweynaha Puntland oo juhdi fara badan ku bixiyay waxaan u mahadcelinayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed dadaalka dheeraadka ay u bixiyeen deynta in la cafiyo shidaalka in la beec geeyo dadaalka iyo horumarka ay wadaan waxaana ugu baaqayaa isla mar ahaanta inay taageeraan dadaalka faraha badan ee la bixiyay ee ku soo gabagaboobay heshiiska Jubbaland khilaafkii ka dhashay doorashadii 22 August waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada reer Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysaba wajigii koowaad ee dib u heshiisiinta ayaa la soo sameeyay qaybihii kale ee dib u heshiisiintana halkan iyo meelaha kale ee loo baahdo ayaa lagu qaban doonaa haddii alla yiraahdo sida qorshuhu yahay marka isbedel laga shaqeynayo oo run ahaantii tiimka iyaga isbedel doonka ahaa qorshaha aanu ku soconay ahaa inaanu madaxtinimada la wareegno laakiin wax kastaba xagga ay ka qoran yihiin waa bari aadan waa bari wararka Somali Cable TV magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka ah maamulka Jubbaland wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay agab caafimaad ay gaarsiiyeen dowlad goboleedka Hirshabelle sida uu ku soo waramayo wariyaha magaalada Jowhar inooga soo warama Liban Laki wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta Arbaca ah agab caafimaad soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka Hirshabelle wafdigana waxa hogaaminayay Cabdifataax Cabdinuur oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya agabkan caafimaad oo maanta dowladda federaalka Soomaaliya ay soo gaarsiisay dowlad goboleedka Hirshabelle ee looga hortagi lahaa cudurkan safmarka ee 19 ugu horeyn waxaan goobta ka hadlay doqo magaalada Jowhar Saalax Muudey iyo Cabdifataax Cabdinuur oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya marka hore waxaan salaamayaa Cabdifataax Cabdinuur oo nooga socda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan tiimka isaga weheliya ee maanta noo yimid booqashada noogu yimid taas oo ah COVID-19 oo ah cudur safmareen ah ee dadka laaya dunidina aad uga cabaajiyay oo ah cudur aad u khatar ah dilaana ah ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa tiimka nooga socda oo inoo wada daawo
waxaan rajaynaynaa imaashihiina aad ayaan ugu faraxsannahay soo dhowaada halkan waa Jowhar waxaanu maanta annaga iyo wasiirka caafimaadka ee Hirshabeelle oo nala socday keenay agab dhowr ah oo isugu jira PPE-ska amba protective gearska loogu talagalay dadka frontline ka taagan inay isticmaalaan sanitationskii dadka mataqaana lagu hubinayay inay jeermiska dhinto iyo dhowr kale qalab ah oo runtii wax badan ka qaban doona haykalka caafimaad ee Hirshabeelle iyo meelihii loogu talagalay in dadka lagu caawiyo ugu dambeyn waxaa sandhankiisa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyro Makraan waxa maanta maartay uu ku saabsanay in waftigan qiimaha leh oo na soo booqday in cudurkan dilaaga ee maartay caalamka hareeyay in qaybtii maartay uga aadaneed maamul goboleedka Hirshabeelle ay waftigan u kuurgalayeen ayagoo keeneen qayb kamida maartay agab caafimaad qaybi ugu horeeyay hordhacahay waxaan aad iyo aad maartay u soo dhaweeynaa booqashadooda iyo maartay imaashadooda inoo yimideen waxaan ilaahay maartay ka baryaynaa inuu cudurkan dadkan waa dad masaakiin cudurkan dawladii waaweynaayo imkaaniyaad badan haysta ayaa maartay dhibaato iyo farabadan ku haya maadaama uu culeyskaas uu leeyahay cudurkan in ilaahay uu naga badbaadiyo ilaahay ka baryaynaa marka wixii dadaalo iyo wixii meelaha aan ugu tala galnay ama goobihii loo asteeyay maartay in dadku midda kooga horena lagu fiiriyo markii kale la helo oo qof midna xanuunkaas hay la helo meeshii la dhigi lahayna waxa maartay soo tusinay waftiga iyo maartay sidii ay u soo indheeyaan in aad u mahadsantii shirka maanta wuxuu ku saabsanay sidaas qaybo kala duwan oo wasaaradaha oo waxay ahaayeen isku wada xiran kana wada dhaxayso bahda caafimaad ee loo wajihi lahay cudurkan halista haday amni tahay iyo haday qorsheyn tahay iyo haday caafimaadka ugu horeeyay ay tahay iyo wasaaradaha kaleento ayagana la sidoo kaleento maartay soo qusayhayo in maartay qaybaha ay ku leeyihiin cudurkan halista ah oo umada maartay aad iyo aad ilaahay inuu naga dulqaado ilaahay ka baryaynaa shirkeena sidaas oo ku saabsanaa shirkina waa loo xiriyahay Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Lakiman Somali Cable TV Jowhar gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer ayaa wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay fatahaadii ka dhashay dadkii shalay waxyeeleeyay dadka danyarta ee gobolkaasi ku nool wariyaha Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa faafahinta warkan inoo soo diray gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob ayaa wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo gaadiidka ku eedeeyay khasaaraha ka dhashay toga magaalada Burco khaasatan bridge-ka labaad ee magaalada Burco gudoomiyaha oo maanta booqday goobaha ay waxyeeladu ka soo gaadhay daadkaasi ayaa waxa warbaahinta u sheegay in hore looga digay khasaarahan balse ay gabtay wasaaraddu isla markaana ay iska indhatirtay gudoomiyaha ayaa waxa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay magdhow ka bixiso khasaaraha soo gaadhay danyartaasi maadaama uu khasaarahan ku yimi dayaca ay wasaaraddu geysatay waa sida uu hadalka u dhigay waa kan gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya halkan waxaan taaganahay dooxii weynaayo Burco oo xalay to geystay khasaare hantiyaad saanu imika ogaanay markii aanu ku urgalay 11 qoys ayaa hantidoodii iyo guryahoodii ay ku dumeen iskuulkana wuu laalaadaa waa aragtaan badiisina wuu dumay dhulkana wuxuu ahaa dhul degsiima oo boqolkii sanadood Burcad jirtayba waa la deganaa dhul dadleeyay buu ahaa kamanu mid ahayn dooxa mana ahayn dad dooxa ku soo guuray ama dooxa maxay too ciriiriyay loo oran kara maaha sida guryaha Ingiriiska ku dhisay oo kale la mid ahaayeen ee toga qarkiisa ku yaala dadweynaha waxa soo gaadhay dhibaato hanti haysteen guri haday tahay iyo agab haday tahay iyo waxa wax ku gursadaan haday tahay gurigoodii oo dhammaystiran baa soo dhacay Burca waxa jirtaa 100 sano in ka badan 100 sano inta ka badan dadkaas waa deganaayeen dadka qaarkood waxay sheegeen dhowr iyo 30 sano inay deganaayeen dhibaatada waxa weeye waa in la isweydiiyaa Togdheerna meesha waa ahaa dadkuna waa deganaa laakiin daadkan fatahay ee tirada badani xaguu ka yimi waxa la yidhi cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo sida runtii daadkan waxa weeye waa daad magaalada hareeraha ka mari jiray moos baad Burcad dusha ka mari jiray mooskii waxa loo sameeyay nidaam farsamadiisa aan waafaqsanayn biyo dabatana waxay soo qaadeen toga togi waxa soo galay biyo ka badan sidii injineeraduba hore way u sheegeen biyo ka badan biyihii markii hore loogu tala galay ee dhex marayay
dabeetana kaasi wuxuu keenay inuu fatah fara badan uu yimaado biriishada burcana daadku dhakada ka maro waa daadkan iyo daadkii ku xigay labaduba saasay ayay maxay ay sameeyeen waxa cadaana maalintii la xidhaayay maxay xariga laga jaraayay biriishka dayactirkiisii inuu injineerku sheegay in Phase 2 uu haray biriishka bariga burco Phase 2gaasi wuxuu ahaa in lagu xidho gidaar la raaciyo mooska ciidda loo dhigay in gidaar hore loo raaciyo si aanay biyo dadka waxyeelayn waxaan leenahay waxa mas'uuliyadda qaadaya xukuumadda oo isku dhan waxa sii qaadaya dawladda hoose iyo hawlaha guud waxay ahayd in wasiirka hawlaha guud uu qaato go'aan degdeg ah Phase 2gana inuu fasaxaabay ahayd haddii markaa dhaqaalaha uu ka wabiyay waxay ahayd dawladda hoose inay gabiyan ku xidhaabay dadka waxa loo qabto baan leenahay xukuumadduna dhaliisheeda ha qaadato eedeedana ha qaadato togaa dumayna xukuumadda xaggaana biyaha ka jartay oo dawladda hoose cagafyo khaldan gelisay xaggana iyada diiday in dadkii biyaha la dhaafiyo oo inta hal moos la dhigay ayay Phase 2gii u diiday wasiirka hawlaha guud iyo maayarkaba waa in su'aalo laga weydiiyaa waa in baarlamaanku u yeedhaa waa in ay u yeedhaan guurtidu waa in su'aalo laga weydiiyaa waxa togaasi ummadda ku qaaday waxa weeye gobolkan togdheer sida runtii waxaad moodaa xukuumaddu inay lowday in la rabaaliyay baad moodaa waxa la rabaaliyay caafimaadkii waxa la rabaaliyay waxbarashadii waxa la rabaaliyay nabadgelyadii waxa la rabaaliyay dhismayaashii dadka oo dumaya maanta waynu dareemaynaa xuduudda ugu dheer baa gobolka togdheer leeyahay waxa la yidhi qaadka waa la joojinayaa maxaa lagu joojiyaa bilayska ka hortagaya xaguu joogaa gaadiidka sax ay ka keenayaan ayaa isweydiin leh gobolka togdheer wax shaqaynaya oo aad ishu qabanayso bilayska laba baabuur buu wataa cusbitaalka weyne burco waxaa loo diyaar garoobayaaba la leeyahay maxay tahay COVID-19 ambulance male ma xukuumaddu ma hal ambulance bay weydi hadday xukuumaddu dhaqaale weyday ma dadkay agaasimi kari weydi oo ganacsatada iyo culimada mar walba ay u yeedhayaan ayay odhan kari waayeen baahida naga daboola waxaan leenahay oon soo jeedinaynaa dadka muxsiniinta reer Somaliland xukuumaddu waa ku waajib inay dadka wax u qabtaan iyagana waxaan leenahay dadka barakacay baabaay guryahoodii baabeen si toosa ha loo caawiyo insha Allah Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xukuumadda Somaliland ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda caafimaad ee wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Ibraahim agaasimaha wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xeergeey oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa waxa uu warbixinta maalinlaha la wadaagay bulshada Somaliland sidoo kalena waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad ee wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon uu ku sugan yahay isagoo sheegay inaanu hayn caabuqa COVID-19 balse uu hayo xanuun neef mareenka ah 29 bishii Afraad 2020 waxaynu mar kale isugu nimi kulankeenni maalinlaha ahaa ee aynu ku kala qaadan jirnay warbixinta maalinlaha ah ee xanuunkan COVID-19 gaar ahaan xaaladda iyo halka uu marayo qarankeennan Jamhuuriyadda Somaliland alxamdulillaah ilaahay ayaa mahadle wali xaaladeennu waa sidii hore 6 qof wax inoogu soo biiray oo confirm ah ama case kale oo la cadeeyay oo ilaa imika ay wasaaraddu cadeysay oo ku soo biiray ma jiro 6 case sidaan horeba aynu sheegnay 3 case oo kamid ah ayaa bogsaday alxamdulillaah marka caseska imika ay wasaaraddu la socotaa waa 3 case iyaguna aad iyo aad ayay u caafimaad qabaan waxa kale oo aan doonayaa inaan idinla wadaago in shaybaadh aanu ka qaadnay caasimadda iyo meelo kale oo waddanka ahba ay inoogu maqan yihiin confirmation oo aynu heli doono jawaabtooda dhowaan shaybaadhadaasoo ilaa 36 shaybaadh ah waxa kale oo aan doonayaa inaan idiin sheego in nambarka guud ee shaybaadh ilaa imika aynu samaynay ay yihiin 208 qof waxaan jecelahay inaan bulshada u sheego inay xaaladdu ay degan tahay laakiin aynu wali ku jirno diyaargarow xooga waxa aan jecelahay dadweynuhu taladii iyo tusaalihii ay qaateen inaanay dabcin inay sii kordhiyaan mooyaane talada iyo tusaalaha aynu siinay aynu
wacyigelinta aan maalin walba hawada u soo marinaynay ee aan leeyahay bulshadeennuna iyaguna way u dhaganuglaanayaan oo way qaateen waxa ka mid ah in aynu kor u qaadno nadaafadda guud iyo nadaafadda gaarba inaynu badinno faraxalka wakhti kasta iyo goob kasta oo aynu ku aragno faraxal inaynu faraxalanno oo aynu dhaqan aynoo noqoto inaynu mar wal aynu dibad u baxno mar wal aynu hawl qabanno mar wal aynu taabanno meelaha aynu ku shaqaynayno inaynu haddana faraxalkiina raacino aynu faraxalanno iyada oo taa ay dhinac socoto inaynu kor u qaadno guud ahaan nadaafadeenna hadday tahay nadaafadda qof nadaafadda qoys iyo nadaafadda qaran intaba ninka wariyaha waxaa naloo sheegay in xaalad caafimaad ay jirto tiim ayaanu dirnay waxa uu leeyahay calaamado neef mareenka ah sidaynu horeba in badan u sheegnay calaamadaha kasta oo neef mareenka ahi ma noqdaan covid-19 intaas oo calaamadood ayaa jira oo neef mareenka ah oo ay keeni karto oof oo ay keeni karto xiiq oo ay keeni karto xanuunada kale bronchitis iyo wax lamida oo neef mareenka ku dhaca tiimkii aanu dirnay sambaleskii ay soo qaadeen qaybtii hore ee aan halkan ku eegnay wax dhibaato ah oo aan ku aragnay ma jiro gargaarkii u horreeyeyna waa loo sii fidiyey mana hayna ilaa imika in xaaladiisu ay la xidhiidho xanuunkan aynu imika ka hadalno laakiin waxa weeyaan xanuuno neef mareenka ah oo uu ka cawday dhakhaatiirtii way u tagtay wixii taageero marka ay u fidinayeenna way u fidiyeen shaybaadhkiisii qaybtii hore waxaanu aragnay inay negative tahay hubinna waanu dirnay oo waanu sugaynaa jawaabta laakiin ilaa imika waxaa noo muuqdaa inaan wax xanuunkaa ula taxalluqaa aanay jirin cabdiraxmaan ibraahim telefishinka Somali Cable Hargeysa bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay bilaabeen inay afur u sameeyaan dadka danyarta ee ku dhaqan magaaladaasi wariyahayaga magaalada Beledweyne inooga soo warrama Maxamed Cabdi Baadil ayaa faafahinta warkan inoo soo diray kulan ay maanta isku gumaadeen rugta ganacsatada iyo warshadaha Hirshabeelle iyo ganacsiyada magaalada Beledweyne Culumidiin ayaa ku saabsanaa sidii sare loo qaadi lahaa barnaamijka afur walaalka $2 kaas oo dadka danyarta rugta ganacsatada iyo warshadaha Hirshabeelle ayaa afur u sameeyaan barnaamijka afur walaalka $2 ayaa waxaa la bilaabay 1 bisha barakeysan ee soonka waxaana maalin kasta ka faa'iideysta 200 oo qof oo danyar kuwaas oo la kala soo xulay 4 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne ganacsatada Culumidiin oo kulan ka hadlay ayaa waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay in la afuriyo dadka waxaysanin sidoo kalena waxay baaq u direen oo ku aadan in ay ka qayb qaataan barnaamijka ku afur walaalka $2 dadka waxaysto Xaaji Nuur Cusmaan oo ku hadlay afka ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa faafahin ka bixiyay waxa uu ku saabsanaa kulanka 9 bisha Abriil rugta ganacsiga ee gobolka Hiiraan waxa isku yimid culumadii gobolka ama degmada Beledweyne iyo iyo ganacsatadii ayagoo macnaha ka hadli doono insha Allah in la afuriyo dad masaakiin oo macnaha lagu afurinayo qofkiiba macnaha $2 oo aan bilownay soonka kowdiisii ilaa haddana aan wadno ayaanu rabnaa inay ka hadlaan culimadu annaguna waxaan ku goobinaynaa dadka heer Hiiraan macnaha $2 ku afuri walaalka macnaha inay ka soo qayb galaan insha Allah dhibaatooyin kale oo jirana kullee ayaa ku diri doono gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga warshadaha Hirshabeelle Xaliim Sheekh Cabdullaahi Fiidow ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday in ay ka qayb qaataan barnaamijkan qof kasta oo walaalo oo muslim oo meel jooga waxaan leenahay oo gaarsiineynaa war hadaad la baxdo qof aad u furiday adaa iskala cid u kaamale hadaad 4 la baxdo labaad afuriday hadaad 5 iyo 6 la baxdo wax badan aad afuriday adaa iskala cid u kaamale nin walba wuxuu barka shaqaysto biri helaya waxaan leenahay kuwa la baxayna wax ka qayr badan meeshooda in Ilaahay u soo galiyo kuwii hadda la baxayna kuwa hadda dhimanne inay soo kordhaan oo ku soo darsadaan aan Ilaahay uga baryeynaa Maxamed Cabdi Baadil Somali Cable TV Beledweyne hay'adda Hormuud Foundation iyo Salaam Banki ayaa waxa ay deeq gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb ee ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir wariyahayaga magaalada Muqdisho ee nooga soo warrama Saleebaan Xaaji Axmed Raage ayaa faafahinta warkan inoo soo diray madaxda hay'adda Hormuud Foundation iyo Salaam Banki ayaa ugu horeen maanta kormeer ku sameeyay qeybaha uu ka kooban yahay xarunta dhexe ee Xabeeb Public Mental Health ee degmada Kaxda halkaas oo ay kula kulmeen dad aad u fara badan oo isugu jira
rag iyo dumar la xanuunsanaya xanuunada ku dhaca maskaxda. Madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa ku wareejiyay maamulka isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb deeq ka kooban raashin sida bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo deeqdaasi ku wareejiyay maamulka isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay deeqaha ay ugu talagaleen dadka noloshaada ku jira inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dadka tabaaleysan. maanta waxaan joognaa isbitaalka Xabeeb dadka ka xanuunsan dhimirka kaasoo aan soo gaarsiinay gargaar ama kaalmo qayb ka ah barnaamijkii aan maalmahan wadnay bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku taakulaynay dadka nugul ee bulshadeena kamid ah. deeqdan oo ka imaatay Salaam Bank iyo Hormuud Foundation waxa ay ka kooban tahay 70 loor oo bur ah, 70 loor oo bariis ah, 30 loor oo sokor ah iyo 50 caag oo saliid cuntada loo kariyo iyo 50 kartoon oo timir ah oo ka kooban 400 oo kiilo oo timir ah. waxaan ugu talagalnay dadka halkan ku jira tiradoodu lagu sheegay 100 iyo 80 oo isugu jira rag iyo dumar. dabcan waa dad xanuunsan ka yimid meelo kala duwan ee dalka Soomaaliya kamid ah. Madaxa isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb Cali Maxamed Xasan oo deeqdaasi gudoomay ayaa kaga mahadceliyay Salaam Somali Bank iyo hay'adda Hormuud Foundation kaalinta ay ka qaadanayaan u gargaaridda dadka dhimirka la, isla markaana waxa uu tilmaamay in deeqdani ku soo aaday xilli aad ugu baahnayeen. إن شاء الله بشي رمضان بشي وصدقة وفي عنواي ومحو هاي أنت مسلمين تي وحكو صدقيستان وبري يوم القيامة نول إلهي مدكت وكسينا يا أنا كان محو هاي عاد ما إنكم فرحني هذا وحي إنكم عسرين إن وح الله لو وحي باهظ ونور من المادام حفيز كرئيس الوزراء على الصعود وهرمود فوديشن أي صعوده وباهظ إن ما أنت عاد أركتين وحن عشان عن قرص جرني إن يبان تا إن هم تعدد كل أركتين إن جوجل جرين raashinka gabaabsi u ahay maqaasiina muxuu deyn lagu lahay haddana maanta naga fujiseen caawa si fiican oo afureyno oo faraxsannahay insha Allah waxaan idin codsanaynaa intii dhammaan inoo dhameystirtaan. Madaxa arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha Maryan Aadan Amiin oo hadal kooban ka jeedisay goobta ayaa uga mahadcelisay Hormuud Foundation iyo bangiga Salaam sida ay iminka ula socdaan baahida dadka xanuunsan. waxaan u mahadcelinayaa madaxda Hormuud Foundation iyo Salaam Bank oo mar walba la qartaagan dadka tabaaleysan dhibta aad qaba aad moodid in yaa u sheega isleeda meelba meesha ka il daranteed. runtii markii ay halkan maanta inay u socono maalo hore ii sheegeen aad ayaan ugu farxay maxaa yeelay waa meelaha ugu nugul ee bini aadan Soomaaliya uu noogu nool yahay. waxa ku nool booliis soo xanuunsaday, waxa ku nool military soo xanuunsaday, waxa ku nool dad gobolada laga keeno waayeel oo iyagu xanuunsan wiliba gacmaha ka jaban, waxa ku nool dad dhalinyaro oo wax barto jaamiciyiin oo halkaas ay taad ilxumo aad ku aragta aadan caawa seexa karin haddaad damiir Soomaaliyeed leedahay. waxaan leeyahay Hormuud Foundation iyo Salaam waad mahadsantihiin sida aad baahida dadka noola dareentiin, sida aad meel walba nugul noola taagantiin, sida aad dadka u daryeeshiin, sida aad calooshooda iyo bagooda waxa ku jiro ogtihiin. Hay'adda Hormuud Foundation iyo Salaam Bank ayaa dardargelinaya barnaamijka taakuleynta dadka tabaaleysan ee bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaana madaxa hay'adda Hormuud Foundation uu baaq dheer u diray dadka Soomaaliyeed ka oo la xiriira inay gacan ka geystaan wax u qabashada walaalahooda tabaaleysan. Salmaan Xaaji Xamdiraagi, Somali Cable, Muqdisho. waaxda saadaasha hawada ee Somaliland ayaa waxay ka warbixisay roobab ka da'ay toddobaadkan deegaanada Somaliland iyo sidoo kale saameynta uu yeeshay. warkan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faysal Fifa. deegaanada Somaliland waxa dhowrkii cisho laga soo gudbay si taxana uga da'ay roob lagu diirsaday kaasoo inta badan dadka qaarkood walaac ka qabeen saameynta uu ku yeelan karo hadiiba uu sii socdo. haddaba roobabkaasi Somaliland ka da'ay dhowrkii cisho ugu dambeysay amba bishii ugu dambeysayba si aan wax uga ogaano waxaan xafiiskiisa xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ku soo booqanay agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Cabdiqani Yuusuf Galayd. Cabdiqani bal faahfaahin naga sii roobabka Somaliland ka da'ay dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay kaasoo dadka qaarkood siyaabo kala duwan ay uga fal bixinayeen. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin. Faysal aad iyo aad runtii waxa weeye u mahadsan tahay. runtii haddaynu eegno roobkii ka da'ay Somaliland guud ahaan ka curtay bishii Abriil runtii roobkaas wuxuu ahaa roob aad iyo aad dalka gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan lagu diirsaday wuxuuna ahaa runtii waxa weeyaan roob
xajmigiisu fiican yahay ama roob dhexdhexaada buu ahaa oo aad tayadiisuna u wanaagsan tahay runtii meelaha ugu roobka badan ee ilaa iyo hadda rikoodhka aanu ku helayno gobolada iyo degmooyinka waxaa ka mid a Lughaya waxaa ka mid a sida magaalada Gabiley degmada Beer Buuhoodle Burco Hargeysa Boorame runtii roob aad iyo aad u wanaagsan ayaa ka da'ay roobka xajmigiisu wuxuu gaadhayaa 100 ilaa iyo 150 millimeter buu meelaha qaarkood ka badan yahay runtii waa roob fiican oo tayadiisuna aad u wanaagsan tahay adqano magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo kala aynu soo qaadano waxa ka daay roob la tilmaamay inuu khasaare sababay kaasoo saameyn ku keenay dadkii ka agdhawaa toga magaalada Burco dhexmara oo sidaynu arkaynaba dadka qaarkood walaac xooggan ka muujinayeen roobkaas oo kale saadalhan waaxdiinan roobka ay diiwaan gelisay intee buu leeyahay ee ka daay deegaanadaasi runtii roobkaasu intii hore wax khasaare ma geysan laakiin maalmahan dambe roobkii da'ayay sida magaalada Burco oo kale runtii waxa la soo sheegay inuu khasaare roobkaas u geystay balse waxaan ku cadaynaynaa roobka khasaaraha geystay Burco ka mudin roobka Burco ka daay wuxuu ahaa 50 millimeter bidaad inta la eeg ma samayso balse biyahan toga Burco maray ee khasaaraha geystay waxay ka yimaadeen xagga sare sida dhinaca Goliska oo kale iyo gobolka Daadmareed ayay biyahaas ka rogmadeen marka waa biyihii dhuuxa Burco dhexmareeyay runtii waxayna ilaa hadda nolosha sheegay khasaaraha geysteen kulli inay guriyo dumiyeen dadka marka waxayaan iskuulo oo kale iyo guriyo inay dumiyeen waa nolosha sheegaya balse roobka da'ay waa daad biirsaday mu ahayn taasuna runtii waxay cadeynaysaa dadka isdhigtay oo maadaama markii hore aanu niri dadka u sheegnay roob baa di'i doona roobka xajmigiisuna uu wanaagsan yahay siiba meelaha godan iyo meelaha daad mareenka ah aad halaysaga ilaaliyo waxaad moodaa runtii waxa jirta xoogaa isdhigasho ah mar labaadna runtii waxaanu faraynaa dadka hadda roobka di'i doona laftarkiisa iyo in la iska ilaaliyo oo dadku meelaha godan iyo meelaha biyo mareenka aba aad looga dheeraado maadaama roobkii gugo oo runtii waxa weeyaan uu curtay dhinaca kale hadaynu eegno gobolka Daadmareed iyo buurahan Goliska ee xagga sare ka soo xigay runtii waxa ka rogmaday deegaanada Soomaalida qaarkood khasaaraha roobkaas ay keeneen ayaa soo taraya dadka qaarkoodna walaac fara badan bay qabaan maadaama roobku si taxana uga da'ay deegaanada Soomaaliland dhowrkii shalay ka soo gudbay bal hadii xog ahaan aad dadka la wadaagtaan roobka soo socda iyo saameynta yeelan karaan iyo goobaha ay ka da'ayaan mid iyo laba nooc runtii dadka waxa gashay sidaad Faysal u sheegay cabsi baa gashay waa runtii dadka waxaan u sheegaynaa roobka di'i doona ilaa ay marka wax weeyaan 6 bisha roob normal oo caadi ah oo kii bishii hore Abriil ka da'ay ayaa dalka ka di'i doona balse dadku inay feejignaadaan roobkaasuna wuxuu u badan doonaa sida ka muuqata qariirada aanu ku qaybinay warbixinta Faysal oo gobolada bariga maadaama bishii Abriil ee hore uu ku badnaa dhinaca galbeedka hadda roobku maalmahan wuxuu u badan doonaa ilaa ay 6 bisha May gobolada bariga ayuu u badan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah biidnillaahi kariim وحقاق أدي أدبو ماسيا قاسمها وحدة صاداشة هودا وزارة هرمانيتا بيرها سوماليلان أدقاني يوسف قلايد أو رئيسيقا قاركا حفيزكي سحرونتا وزارة يقوسينا يكودويد وفيصل محمد آدم فيصل في فتفيقا سومالي كيبل أرقيسا gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa maanta xilkii la wareegay sida ay ku soo waramayso wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo waranta Kafeeya Daahir Ibrahim munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay qalka dawladda hoose Xamara ayaa waxa xilka xafiiska maamulka iyo maaliyadda kula wareegay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan madaxii xil wareejinta waxa ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Cumar Mahadalle gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabada xil wareejinta gudoomiye ku-xigeenkii hore maaliyadda gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee xafiiskaasi gudoomiye ku-xigeenkii hore maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Cumar Mahadalle oo xilka wareejiyay ayaa ka hadlay munaasabada xil wareejinta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda Axmed Xasan Iimaan أحمد كسلو قبل كبنادر قال أنا حفيزك مامور كي ماليدة وحن هو أن أوجهي أحمد إنه لنا كرتيب بدن شغلة أنا كبح كرا وحن أرجيني إنه كجولست وقدام بنتي مددي أجوي هالك السنة وحن أمسنا هاي إن قفت الشغف عن إن هو هذيك شعب كيجا إن صاحب لها ضدك كود نقول
aan gacan qaban jiray gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa dhankiisa ka hadlay xilka maanta uu la wareegay waxaan rabaa inaan saaxiibkay Ibrahim oo muddo soo joogay meeshaan intii Ilaahay u qoray shaqada uu qabtay oo noo sharxayo tirada badneed aan uga mahad celiyo runtii dalkiisa iyo dadkiisa uu shaqeeyay dhaqanka dawladnimada wuxuu yahay macnaha qofka inuu muddo meel joogo ka bacdina waa meerta xilkii markii Ilaahay uu qoro uu ka tago waa sunno dawliya annaguna kulli meeshii uu waxgeeyay asiga tiimkiisii ayaan ka sii wadi doonaa daaladmo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cumar Filish oo goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta ayaa isna madasha ka hadlay maantay waa maalin aad iyo aad u wanaagsan waa maalin xil wareejineed waxaa xilka wareejinaya ama wareejiyay walaalkay Ibrahim Cumar Mahadalle oo muddo sanad ah xilka soo hayay waxaa xilka la wareegaya Axmed Xasan Iimaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda cusub waxaa farxad noo ah sida qalbi wanaagga iyo reereynta iyo sharafka ay noogu qaabeeyeen ayagoo runtii maxabo iyo walaaltinimo iyo isfaham iyo asxaabnimo hore intaba ay ku dhaahantaa xilka midkaan haayo iyo midka ay haayaanba iyo kuwa adinku aadaysiinba waxa waaye waa meerto midba maray mataqaanaa qabanaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 26 bishii Abriil u magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan kadib wareegto xilka looga qaaday gudoomiyihii hore Ibrahim Dheere Kafee Daahir Somali Cable magaalada Muqdisho guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee gobolka Awdal ayaa maanta waxa ay gubeen qaad ay soo qabteen ciidanka booliiska gobolka Awdal wariyahayaga jaamac dude ayaa faafahinta warkan inoo soo diray gudoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka COVID-19 ee gobolka Awdal ahna barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ay weheliyaan duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadii iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Awdal gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Colhaye ayaa maalintii labaad si xidhiidh ah u gubay qaad lagu soo qabtay howlgallada 24 saacadood ee u dambeeyay ay sameeyeen laamaha ammaanka ee gobolka Awdal qaadkan oo lagu soo bandhigay taliska guud ee ciidamada booliiska gobolka Awdal ayaa waxa halkaasi ka hadlay duqa Boorama Saleebaan Xasan Xadii iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Awdal gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Colhaye waxaanu habeenkii xalay ahaa ilaa saaka waa berigii soo qabanay jaad dhan 200 oo marduuf kaasoo aanu ku soo qabanay 5 eedaysane ilaahay si guula ayuu gacanta noogu soo geliyay raggii hore ee waaweynaa ee jaadlaha ahaa wax dhibaato aan hadda ka arkayna ma jiro laakiin waxa kacay yamyam iyo qadaad weyn qolo layda oo degla ah dhabarkay ku guraan iyo degta cidaanu ku qabanno jaadka iyo hantida iyo lafihiisaba sharcigaanu horgeynayna waad ogeedano qaybtaanu gubnay waa qaybtii labaad inta wali u xidhan waa 13 qof ay noqonayaan waxaan leenahay dadka war talada ha loo dhiga nuglaado talada la idin siinaya idinka la idinku naseexaynayo mijina qaada naftiina riska ku gelinina waa la idin soo koobo waxa la yiri inta bisha rabadaan inta hadda diin kari weydeen dawladdu go'aankeeda way socodsiinaysaa hantida iyo gaadiidka gacanta lagu dhigana waa la wareegayaa geestiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa uu fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolkan Awdal bariyaan waxaan ku jiraa ayaamahan howlgalladan lagu qabanayo qaadka laga mamnuucay dalka go'aamada ka soo baxay madaxweynaha iyo guddida madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo coronavirus taasoo mamnuucaysa qaadka bisha Ramadaan runtii hawl badan baan nagala soo horeba u sheegnay jiidayadu way ballaalatay aad bay u dheer tahay haddana howlgal runtii xoog leh baa lagu qaaday shalay oo dhan booliis waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aan leeyahay shaqadoodii way qabsadeen oo way dadaaleen
oo magaalada koonaha walba way istaageen oo annaguna waan ku kormeeraynay meeshii ay joogaanba waan ku kormeerayay shacbigana waxaan leeyahay war gacan siiya booliiska oo 30 marduuf inaan yaroo ku dhimanaya 10 marduuf amba xari ku galaya amba gaarigiisa lagu waraskarayn ha ku taageerinina intaasoo kaliya kumaysan ee keenay barasaabka gobolka Awdal oo wali ku guda jira gudashada waajibaadkiisa shaqo ayaa waxa uu kormeer kala duwan ku soo maray xuduudaha uu gobolku la wadaago wadanka aynu jaarkana ee Itoobiya kormeerkaas oo ujeedkiisu ahaa sidii loo dabargoyn lahaa qaadka qarsoodiga ku soo galaya guud ahaanba magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama si kastaba ahaatee waxa saacadihii u dambeeyay si toos ah u socda howlgallada kala duwan ee lagaga howlgalayo sidii loo cirib tiri lahaa jaadka qarsoodiga ku soo galaya guud ahaanba gobolka taas oo hormuud ka yahay barasaabka gobolka Awdal Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Soomaaliland iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ay ka daayeen roobab mahiigaan ayaa waxaa halkaasi ka barakacay dad gaaraya 3,000 oo qoys waxaa warbixintan soo socota magaalada Jowhar inooga soo diray wariyahayaga Liibaan Laki iyadoo maalmihii la soo dhaafay roobab mihigaan ay ka da'ayeen gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle isla markaana sababay in ay ka barakacaan qoysas tiradooda gaaraysa ku dhawaad 3,000 ayaa maanta qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada Jowhar ay bilaabeen in ay ka saaraan goobihii biyaha ay fariisteen iyagoona adeegsanaya 3 mashiino oo ay ku xiran yihiin bambo biyaha tuuraya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah shacabkii barakacayaasha ahaa saad ka warqabtiin dadkan waa dad yani iska dhiban oo quutul yoomka la dirira waxaa lagu jiraa bil Ramadaan waxaan marka mutaqaanaa codsanaynaa ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan shirkadaha maaragtay maamulka qaybihiisa kala duwan hadduu yahay heer degmo heer xaafadeed heer gobol ilaa Hirshabelle ilaa dawladda dhexe in hawshan wax nagala qabto iyo hoos biyo uga jiraan gargaar iyo nooc walba u baahan iyo aqli matoori adduunka la geeyay waxay u baahan tahay in wax dadkaas matooradaas iyo hantidooda ma bixi karaan in loo kaalmeeyo dadka ilaahay wax u dhiibay iyo wixii beledkan anaka dawladda ee dhahayno kulli waxaan rabnaa inay dadkan wax u qabtaan ay soo arkaan juhdiga aan ku bixin oo kale inay ku bixiyaan Cabdi Xiiri Caraalo oo kamid ah ganacsatada magaalada Jowhar ayaa san dhankiisa ka hadlay waxaan rabnaa dadka walaalaha oo ganacsatada ah ee u dhashay gobolka Shabeellada Dhexe ama dal ha jooga ama dibad ha jooga xaafadan sanad walba biyaha ku soo noqnoqonaya waa in laga maareeyaa maxaa yeelay xaafadan waxay noqotay xaafad ay biyaha u soo hoyaadaan biyihii ka da'o xaafada Kulmis iyo xaafada Buulo Makiino xaafadan u soo hoyaadaan waxaan rabnaa inaan had iyo jeer dadkan walaalaha ah ee raxmad walba Ilaahay keena fasal walba oo ku dhibaatoon inaan caawino inaan beero waxa jiro oo banaan oo dalagooda oo iska yar yahay inaan u gadno oo ku suurno hadii la heli karo hadaan la heli karin maanta aan u gurman horta biyaha aan ka bixino kadib aan kaga tashano matooradan fasal walba dhaqaalaha loo raadinayo aan kaga tashano ugu dambeyn waxa asan dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Aydiid Maxamed Cabdulle ugu dambeyn matoorada cusub ee hadda la keenay meesha qarashkoodii inaan bixino wixii ku baxaayo aan ganacsato ahaan anagu aan isi saarno bixino dadka ganacsatada ah ee ku ganacsado degmada Jowhar gaar ahaan suuqyada ha ogaadaan haddii biyahaasu ay dadkaasu celiyaan oo iska daayaan in ganacsi uusan soconaynin oo xaafadaha ay ku naqanayaan biyuhu ninkii fulayga wuxuu yiri marka warniyo waxaan la ordaayay naftaada maahe naftayda maahe taadana waa ku jirtaa dadkan waxa loo sheegaa marka waxa dadkan ay la cabaadayaan oo hadda annaguna aan u taaganahay idin baryayno waxa aan la cararayno naftiina iyo ganacsigiina waa ku jirtaa oo badbaadiya naftiina nafta walaalihiina badbaadiya ka ganacsata ahaan waxaan la garab taaganahay dadka deegaankaas hiil iyo ho intaba Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Laki Somali Cable TV Jowhar
qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studiyiisa magaalada Nairobi warkan waxaa idin akhrinayay anigoo Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhammaan wariyaashiga la qayb qaatay tibinta warka dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.